بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن داوديال كسو دوادا برنامجka faraaqaynta wararka barnaamijkan caawa qodobada aan idinku hayno waxa kamid ah 42 milyan oo qof oo Amerikaan ah oo gaajo qarka u saaran isla markaasna laga dayrinayo xaaladooda waxaana arintan ay ku soo aadeysaa xilli Mareykanka la isku fahmi waayay dhaqaalihii hay'adaha dawladda ay ku shaqayn lahaayeen isla markaasna ay dhacday xaalad adag oo lagu xanibay dhaqaalihii waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka waxay shaaca ka qaaday in 130 milyan qof aan la magacaabin uu u siiyay hadiyad ahaan hay'adda si ciidanka ay ugu maareyso arintan ayaa qaanuunka marka loo eego su'aalo badan laga geliyay waddanka Mareykanka sidee ku dhici kartaa in hay'addii ugu muhiimsaneyd ee Mareykanka ay qaadato lacag qof uu siinayo laakiin xaaladdu way ka sidaraysaa waxaan la isku afaqin in dib loo furo dhaqaalaha oo xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka iyo xisbiga jamhuuriga ee talada haya ayaa si weyn arrintan isku khilaafsan marka ay timaado koongareeska iyo aqalka sare ee sanadka haddaba warbixin la yaab leh oo la sheegayo ku dhawaad 50 milyan oo Amerikaan gaajo qarka inay u saaran yihiin ayaynu eegi doonaa barnaamijka qaybta dambe waxaan idinku haynaa Mareykanka iyo Shiinaha oo hal tilaabo oo kaliya u jira dagaal dhexmara maxay tahay sababtu waan faahfaahin doonaa dhammaan qodobadaasi oo idil maxamed Cade oo soo akhriyay macluumaadkan ayaa qadka ku jira maxamed waa u imaan doonaa Shiinaha iyo Mareykanka dagaalka qarka ay u saaran yihiin laakiin gudaha Mareykanka waa xaalad adag ka jirta baa leeyahay warbixintan wargeyskan ka soo baxa Ingiriiska ee The Guardian uu qoray inoo faahfaahin maxamed wargeyska ayaa maqaalkiisa ku bilaabay 42 milyan oo Mareykan ah ayaa waxa soo food saaraya khatar ah in ay baahi soo wajahdo haddii dawladda federaalka xiritaanka lagu sameeyay dhaqaalaheeda oo sii socdo iyo kharashka lagu bixinayo barnaamij lagu barataari jiray dadka saboolka ah oo lagu siin jiray cunooyin inta aan la gaarin November koodeeda halka xisbiga jamhuuriga xubnihiisa ay raadinayaan in ay mas'uuliyadda dhabarka u saaraan xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo ay ku sheegayaan in lacagihii lagu barataariyay dadka dakhliga soo gala uu aad u yar yahay kuna tiirsanaa cunooyinka la siiyo ee gargaarka ah ayaa dadka u ololeeya in la quudiyo dadka masaakiinta ayaa ku andacoonaya in macluumaadkaasi uu yahay maran habaabin marka la fiiriyo barnaamijkii uu Trump hadda ka hor gudbiyey oo uu bixiyey Trump barnaamijkiisi weynaa ee quruxda badnaa oo dhab ahaantii meesha ka saaray lacag gaaraysa 187 bilyan oo sanduuqii ku jirtay lacagta dadka saboolka laga barataaro sida laga soo xiganayo qiyaasyo ay sameeyeen xafiiska u qaabilsan Koongareeska arrimaha miisaaniyadda waa gartay maxamed warbixintu waxay sheegaysaa Mareykanku inuu ku sugan yahay ama qarka u saaran yahay marxaladii gaajo ee ugu darnayd abid bal inoo faahfaahay arrintaasi Joel Berg oo agaasimo guud ka ah Mareykanka inuu xor ka noqdo baahida ayaa sheegaya haddii lacagaha sanduuqaasi ay dhammaadaan dabayaaqada bishan aan ku jirno October in Mareykanku uu soo wajihi doono masiibadii baahi ee ugu xumeyd ee Mareykanka soo marta wixii ka dambeeyay dhaqaale burburkii Mareykanka la soo gudboonaaday sanadkii 1930 kama aan badbadinayo ayuu yiri xaqiiqadu waa sida wargeyska The Guardian ee afka dheer ee Britain ka soo baxa ayaa sharaxaad ka bixiyay barnaamijka lagu barataaro dadka saboolka ah oo mushaaraadka yaryar qaata iyo qoysaskooda iyo dadka waayeelka ah oo da'dooda ay 60 sano ka weyn tahay iyo dadka naafada ah ayaa waxa ay ku nool yihiin lacag xadidan sida laga soo xiganayo xarunta miisaaniyadda iyo siyaasadda mudnaanta siisa barnaamijkaas ayaa waxa uu baahan yahay dadka ka faa'iideysanaya inay waajib tahay in marka hore uu ka hooseeyo khadka ay xukuumadda federaalka u cayintay qofkii dakhligiisa uu ka hooseeyo inuu sabool yahay alcelis lacagtaasi gargaarka ayaa waxaa lagu sheegaa in qofkiiba loogu talagalo lacag ka yar $200 ama u dhiganta $187. waa gartay dhinaca kale maxaa ugu dambeeyay marka arrintan la isku haystay xagga dhaqaalaha hay'adaha dawladda oo dhanka
aqalka sanadka iyo koongareeska doodi ka taagneed maxaa ugu dambeeyay dhinacaas wargeyska ka xusay maxamed wasaaradda beeraha ee waddanka Mareykanka ayaa dhowaan warqad u dirtay agaasimayaasha gobollada ee barnaamijka maareeya waxayna uga digaysaa in laga yaabo sanduuqa lacagtiisa inay dhammaanayso dabayaaqada bishan Oktoobar aan ku jirno oo ku beegan 31 oo maalinta ugu dambaysa wuxuuna weydiistay in la joojiyo lacagaha la bixinayo ilaa ay intii uu amar dambe ka bixinay in ka badan 200 oo ka tirsan Koongareeska kuna jira xisbiga dimuqraadiga ayaa ku baaqaya in wasaaradda beeraha ay lacagta kaydka ah ay u isticmaasho in ay ku bixiso lacagta barataarka ah sida wargeyska Guardian uu ku waramayo waxaana hoosta laga xariiqay in la qaado tillaabooyin cadcad oo uu maamulka Mareykanka qaadayo oo isla markii ku xaqiiqsanayo in malaayiin qoysas ah waddanka Mareykanka oo dhan meel kala duwan ku nool in ay helaan cunno bisha November xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay haddii lacagtaas barataarka ah aanan loo wareejin dadka u baahan waxa ay noqonaysaa in laga gaabiyey mas-uuliyaddii maamulka Mareykanka ka saarnayd shacabka Mareykanka ah waa gartay waayahay maxay tahay marka doodda maxay ku salaysan tahay maxayse yihiin qaanuunadan la doonayo in la isdhaafiyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa diiday inay gudbiyaan qaanuun lagu maalgelinayo barnaamijyo kala duwan waxayna rabaan in xukuumadda dib loo furo haddii qoraalka lagu daro nuqullo ama qoraallo lagu ilaalinayo caymiska caafimaadka gargaarka loo siiyo dadka aanan awoodda u lahayn inay qarash caafimaad ka bixiyaan halka Trump maamulkiisa uu lacago badan hoos u dhigay isla markaasna laga yaabo in waqtiga uu ka dhaco oo ku aadan sanadkan dabayaaqadiisa wasaaradda beeraha ee waddanka Mareykanka afhayeen u hadlay ayaa ku eedeynaya xisbiga dimuqraadiga in ay xireen barnaamijkii lagu barataariyay dadka saboolka SNAP yiraahdo wuxuuna u sheegay warbaahinta Mareykanka in ay ku dhow yihiin xaalad xasaasi ah haddii senatarada ku jira dimuqraadiga ama ay sii wadaan inay cagajid ku sameeyaan barnaamijka lagu sheegay daryeelka caafimaadka oo aanan ahayn mid loo qaateena isla markaasna aan dib loo furin xukuumadda iyo lacagaha lagu barataarayo dumarka caruurta iyo dadka nugul ay helaan oo barataarka ah waqtiga loogu talagalay in ay imaanayso khasaare xoog leh waa gartay waayahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaal waxaan u gudbaynaa qaybta labaad ee barnaamijka sidaad kula socotaan Mareykanka dhibaatadaas ka taagan ee dhaqaale iyo hay'adihii dowladda oo jilbaha dhigtay dagaal ayaa haddana suurtagal ayaa la leeyahay sheekaas baan u gudbaynaa laakiin aan ku hakano qadar xayisiina soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii falanqaynta wararka xagga aynu eegno colaadda la leeyahay qarka ay u saaran yihiin Mareykanka iyo Shiinaha maxamed warbixintan oo warbaahinta Mareykanku ay wax ka qorayso waxa la leeyahayba hal tilaabo oo kaliya ayaa dagaal loo jiraa maxay qortay jariiradan The New York Times laba qoraa ayaa iska kaashaday qoraalkan dheer Eric Rosenberg iyo Chris Lee waxayna tilmaamayaan in xiriirka u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka uu meel khatar ku sugan yahay lagana yaabo in si shil ah ay dagaal labada dhinac isku qaadaan taasoo ay u badan tahay inay xaqiiqo noqoto halkii aanan marnaba laga filayn qoraalkan ay labadan qoraa ay wada jirka u qoreen ee lagu daabacay wargeyska afka dheer ee Mareykanka ka soo baxay ee la yiraahdo The New York Times ayay waxay ku sharaxayaan xiisadda sii kordhaysa ee ka jirta badda koonfureed ee Shiinaha iyo biyaha Taiwan ee lagu muransan yahay sanadadii ugu dambeysay waxaa aad u dardargelayay xaaladaha ay isku
maandhaafsan yihiin xagga cirka iyo xagga badda ah ee u dhaxaysa ciidamada Maraykanka iyo Shiinaha waxaana yaraanaya baa leeyahay in si khalad la isu fara saaro oo ay dhaliso dagaal aad u ballaaran bishii May tusaale ahaan 2023 diyaarad nooca dagaalka ay Shiinuhu leeyihiin ayaa aad ugu soo dhawaatay diyaarad sahana oo Maraykanku lahaa oo maraysa badda Koonfureed ee Shiinaha xaalad ka sii horeysana diyaarad kale oo Maraykanku leeyahay ayaa lagu qasbay inay wadadii ay qadka ay ku socotay ka leexato kadib markii diyaarad Shiinuhu leeyihiin ay u soo jirsatay ilaa iyo 20 dhudhun Shiinaha ayaa dhawaan soo saaray film oo ku muujinayo iska horimaad Maraykanka iyo Shiinaha diyaaradahooda qumaatiga u kaca inuu ku dhex mari karo biyo Maraykanka Taiwan wadanka Australia ayaa ku dhawaaqay in diyaarad nooca dagaalka ah oo ay Shiinuhu leeyihiin in uu mar hore ku firdhiyay baaruud diyaarad ciidanka cirka ee Maraykanka ay leeyihiin waa gartay dhawaan madaxweynaha Maraykanka isagoo ku socda shirka Kuuriyada Koonfureed uu qabanaya wuxuu sheegay inuu jecel yahay in la kulmo Xi Jinping marka xiriirada u dhaxeeya qadadka xiriirada labada dhinac ma furan yihiin mise way xirmeen maxaase warbixintu ay ka sheegaysaa maqaalkan ay wadajirka u qoreen labada qoraa ayaa u tixgelinaya in khatarta ay sii balaaranayso ma aha oo kaliya mid laga yaabo in ay saameyn weyn yeelato hase ahaatee waxaa meesha ka maqan khadad ay labada dhinac Maraykanka iyo Shiinaha ay ku xiriiraan militarigooda si looga baaqsado qalalaase iyo in la isku dhaco si ka duwan sidii xaalku u ahaan jiray xilligii dagaalka qaboobaa uu jiray khadkii u dhaxayn jiray wadanka Maraykanka iyo wadanka Ruushka markaasoo nidaamka isgaarsiinta iyo damaanad qaadka xagga amniga ay ahayd mid looga hortegayo in labada dhinac ay isku khaldamaan oo dagaal toos isla galaan madaxweyne Donald Trump oo isu diyaarinaya inuu kulan kula yeesho hogaamiyaha wadanka Shiinaha Xi Jinping koonfurta Korea ayaa waxa uu hore heshiis oo la gaaray Shiinaha wuxuuna siinayaa baa la yiri in heshiis laga gaaro wadanka Shiinaha mudnaanta inkastoo labadan qoraa ay ku nuuxnuuxsanayaan in ganacsiga oonan ahayn mid xasiloonida sii ballaarin kara sida daraadeed waxaa muuqata in la abuuro khad ay labada dhinac ku xiriiraan si loo maareeyo in Shiinaha iyo Maraykanka ay qaataan tallaabooyin istiraatiijiga lagu xaqiiqsanayo nabad halka Trump oo mudnaanta siinayo taariikh inuu ka tago uuna noqdo midkii baajiyay in dagaal cusub u dhex maro Maraykanka iyo Shiinaha waa gartay waayahay taariikhiyan xiisadu heerkan kale ma gaartay maxaase laga og yahay horay dhacdooyinka u dhacay oo caynkana xilligii jasiiradda Kuuba oo Ruushku geeyay maraakiib iyo gantaalo nucleara 1962 ayaa xaaladdu waxay gaartay in dowladda Maraykanka iyo Itixaadka Sofiyeetiga in ay ku sigtaan in ay hub nuclear isu kaashadaan xiriirka Shiinaha iyo Maraykanka u dhaxeeya ayaa waxa ayaantan dambe ku soo kordhay xaalado ay isku siganayaan wixii ka dambeeyay 2001 markaasoo diyaaradaha basaasiinta ee Maraykanka ay mid kamid ah ku dhacday diyaarad nooca dagaalka ah oo Shiinuhu leeyahay oo mareysay koonfurta badda Shiinaha waxaana halkaas ku dhintay duurihii Shiineeska ahaa waxaana la qabtay diyaaradii Maraykanka askartii waday oo lagu xiray Hainan qalalaasahaasi ayaa lagu soo afjaray 10 maalmood kadib xiriir iyo wada xaajood diblomaasiyadeed oo si faran u dhuuban loo furdaamiyay hasaatee labadan qoraa ee maqaalkan qoray ayaa shaki ka muujinaya in xalka noocaas oo kale ah uu hadda suuragal yahay marka la fiiriyo xiisadda qaran iyo xiisadda military ee labada dhinac ee ka sii dhex aloosan iyo xiisadda kor ku sii kacaysa intii lagu jiray dagaalka qaboobaa dowladda Maraykanka iyo dowladda Ruushka ayaa kala bedelan jiray fariimo ka hor inta aanan gantaale la tijaabin ama
la meel mariyo nidaam dhinac walba dhinaca kale uu ku wargelinayo si loo kala saaro dholatuska iyo dagaal dhaba taasoo gacan ka geysatay in masiibo laga baaqsado laakiin arrintan shiinaha waa suuragal laada waa gartay waayahay dhacdooyin waxaa jira Syria ka dhacay oo ay qorayaasha soo qaateen oo markaas leeyahay suurtagal ayay ka dhigi kartaa in xaaladda la qaboojiyo maxay yihiin dhacdooyinkaasi maxamed labadan qoraa ayaa xusuusinaya dadka akhrisanaya majalada ama wargeyska khibraddii 2015 markaasoo khadkii ay ku xiriiri jireen ee isgaarsiinta Mareykanka iyo Ruushka markii ay timaado waddanka Suuriya dib loo furay si looga baaqsado in labada dhinac ay isku khaldamaan ama dagaal aan lagu talagelin ay qoorta gashtaan halka Shiinaha markii xiriir la sameeyo oo noqonayo xiriirkaasi mid xadidan oo taaltaal ah Shiinaha inta badan waxa ay si ku meel gaar u joojiyaan wada hadallada ee militariga Mareykanka la leeyihiin tii ugu dambeysay waxay ahayd sanadka 2022 kadib markii afhayeenkii hore ee Congress-ka Mareykanka Nancy Pelosi ay booqasho ku tagtay Taiwan oo buuq weyn dhalisay inkastoo madaxweynihii hore Joe Biden iyo Xi ay isku afgarteen 2023 in dib loo bilaabo khadkii wada hadalka hase ahaatee taas ayaana noqon mid wax ku oola iyadoo wada hadalka uu yahay mid xadidan iyo taleefanada ay isu diraan iyo kulamada oo inta badan aanan la yeelan marka ay jiraan xaalado xasaasi ah waa gartay maqaalka waxay ku xuseen qorayaashu waxa u dhaxeeya ama farqiga u dhaxeeya nabad iyo colaad maxay ula jeedaan bishii la soo dhaafay xogayaha dagaalka ee waddanka Mareykanka waa wasaaradda gaashaandhigga waxa la oran jiray Pete Heges ayaa telefoon kula hadlay dhigiisa waddanka Shiinaha Dong Jun wada hadalkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu saxayay isu dheelitirnaanta jirta hase ahaatee qorayaasha ayaa ku doodaya taleefanada mararka qaar la isu diro kuma filna ee gaar ahaan wixii ka dambeeyey khibraddii ama waayo-aragnimadii gurracnayd ee kala kulmeen Mareykanka markii ay taleefano u direen waddanka Shiinaha qol cidla ayuu taleefankaasi ka dhacay Shiinuhu inay ka jawaabaan taleefankaasi waa diideen halka Shiinaha uu sarbeebayo in loo baahan yahay wada hadal hase ahaatee afhayeenka militariga ayaa sheegaya in waddanka Shiinaha uu rabo in la furo sidii loo xoojin lahaa xiriirka military ee ka dhaxeeya wadamada waaweyn si xasiloon loo ilaaliyo hase ahaatee madaxweyne Trump ayaa tahay inuu ka faa'iideysto xaaladda jirta oo uu abuuro nidaam militariga Mareykanka iyo Shiinaha ay ku wada hadlaan si masiibo looga baaqsado haddii kale arrintaasi waxa ay noqonaysaa mid nabad iyo dagaal waxa ay noqon doontaa aan loogeyn waa gartay waa yahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna way mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka daawade si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo